isbitaalkan ayaa waxaa lagu daryeelaa dadka dhimirka la waxaana hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo dardar gelinaysa mashruuca taakuleynta afurinta dadka danta yar waxaa isbitaalkan gaarsiisay raashin isugu jira bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Gudoomiye ku-xigeenka Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi oo ugu horreyn ka hadlay munaasabadda wareejinta deeqdan ayaa sheegay inay ugu talagaleen in ay ku garab istaagaan dadka halkaani ku dhaqan. maanta waxaan booqnay oo aan joognaa isbitaalka Lasereti oo runtii isbitaalada bulshada u adeega gaar ahaan aad ugu sii adeega dadka dhimirka la halkan waxaa ku jiro 115 maaragtay rag ah oo runtii dhimirka ah oo adeeg badan loo sameeyo. waxa Hormuud Salaam Foundation waxay go'aansatay inay qayb ka noqoto taakuleynta dadkani runtii oo u baahan taakuleyn gaar ah. maanta marka waxay Hormuud ugu talagashay Hormuud Salaam Foundation ugu talagashay bur iyo saliid iyo timir marka waxaan rajaynaynaa marka raashinkaasi inuu ka mid noqdo raashinka bisha Ramadaan loogu adeegayo dadka halkan ku jiro oo u baahan dad si gaar ah in loogu adeego. runtii waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybadeeda kala duwan in isbitaalkan soo booqdaan oo ay arkaan dadka halkan ku jiro oo u baahan in maaragtay loo gargaaro. runtii waxaan rajaynayaa marka maamulka agaasinka Dr. Yuusuf inuu arintan nagala wareego dadkana loogu adeego si maaragtay ay ku jirto maaragtay in ay loo samafalo. kusimaha agaasimaha guud ee isbitaalka Lasereti Dr. Yuusuf Cabdi Samow ayaa kaga mahad celiyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation gargaarkan ay soo gaarsiisay isbitaalka. sharaf weyn ayay maamulka isbitaalka Forlini agaasinka u tahay maanta inay ka gudoomaan deeqda wax ku oolka ah oo aan isleeyahay Ilaahay waafajiyay dadku ugu habboon oo macduurka ah oo organka amaba qaybta ugu qaalisan dhimirka ka jiran oo haba yaraatee Ilaahay xataa uu ka cafiyay cibaadaadkii oo dadka lagu kalifay maadaama iyagu ay dadkii ka xanuunsan yihiin xagga dhimirka oo laga cafiyay salaadihii wax walba laga cafiyay. saas daraadeed Ilaahay waafajiyay inay maanta dadkan masaakiinta ay u kaalmeeyaan. Hormuud aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa deeqda wax ku oolka ah. dhinaca kale hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa isla maanta deeq isugu jira lacag iyo timir waxa ay gaarsiisay ilaa 200 oo haween ah oo kamid ah dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Raaxo Xuseen Xirsi oo ah ku-xigeenka Hormuud Salaam Foundation ayaa ka hadashay goobta. maanta waxaa farxad noo ah inaan la joogno haweenka qaranka kuwooda danyarta ah anagoo ku jirna bishii Ramadaan ololaheedii aan deeqda ku gaarsiinaynay dadka nugul ee bulshada. Hormuud Salaam Foundation bil kasta oo Ramadaan waxay macnaha gaarsiisaa deeq kala duwan dadka bulshada ugu liito sida kuwa ku jira xarumaha dhimirka maxaabiista dadka oo ku soo naafoobay 77 oo naafada ah iyo dad kale oo fara badan. maanta marka waxaan la joognaa haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan soo gaarsiinay deeq isugu jirta timir iyo lacag kaash ah taas oo aan rabno inay u kaalmeystaan bisha Ramadaan xagga afurka inay u kaalmeystaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay u barakeeyo mar walba haweenkeena waxa waa culays badan haysta magaaladii macnaha dhaqaalihii ma fiicna marka sidaas daraadeed ay Hormuud Salaam Foundation bulshada waxay ka kaalmeysaa meelaha ay ka nugul yihiin maba ku sii jirta markay Ramadaan tahayna waxa waaye qarashaadku iska fara badan yahay. marka insha Allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta Ilaahay wax siiyay iyo ganacsatada inay ka kaalmeeyaan dadka masaakiinta bisha Ramadaan si Ilaahay khayr fara badan ugu bedelo. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka Warsan Xasan Xagar waxa ayna ka hadashay sida ay Hormuud Salaam Foundation mar walba u garab taagan tahay dadka danta yar. meeshan waxaa maanta noogu soo buuqday oo noogu keenay lacag iyo timir Hormuud Salaam Foundation oo noo keenay lacag iyo timirtii afurka ee lagu afurinayay gabdhaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee danyarta ah ee aan heli karin inay maanta ayagu intay wax soo gataan oo lacag haystaan oo suuqa tagaan timirta iyo afurkaas iska bixin kara. waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Hormuud Salaam Foundation inay mar kasta oo soona iyo waqti walbaba ay garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed
u kaalmayso ummadda Soomaaliyeed haweenka danyarta curyaamiinta barakacayaasha dadka dhibaataysan oo dhan inay horteeda ka muuqdaan ee ay wixii Ilaahay siiyay wax ka kaalmaystaan